waayahay adi hadda maxaa isaga shakisay waxyaabaha ugu shakisa maxaa ka mid ah walaa waxyaabaha ugu shakiyo hadda dadka ay ka qabaafaan oo laga wada cabsado eediska waay haye badanaan dadku saasay idhahaayeen haddana saakaan waxa liiga soo baaray asigoo ahay cudurkaasoo ahay marka 3 bilood kadib imaaween idheen hadda wax ma ka ogaan karno kaniinigan ka hortagana qaado haye marka anoo dhinaca miraayada xigsanay aniga dhinacaana xigsanaydan dhinacan midigta iga xigtay anoo dhinacan ku maqano dariishada dhinacan aan fiirinayo gacanta meesha laabatada oo halbowlaha oo gacanta muruqeeda meesha u dhow muruqa waaybo juk xoogan iga gaartay maxaa xiga marka aniga saaka gacmo dheeraa watay oo hadaa jiido saakada meesha dhibka iga gaari iyo ma arki karin markii hore meel oo caadi la iska arkay guriga markaa tagaa saakada iska siibay meesha fiiriyay hadiyo koo muruga ay si bilaawato maxaa arka meel yar oo cirbad afkeeda maxaa ku ogaaday darawalka aniga lambarka ee lacagta ka tuurtaan ka qortay somneeda marka aniga watay aan u tuuray sintiyaal yar aan u tuuray saas lay ku ogaa karaan farsamo kale oo ma aqoonin aan ku ogaado marka somneedka qofka marka lacagta u tuurto magaciisa saddexna soo baxay lafta meesha magac ugu qoran maxaa magaceeda maxaa waay marka Muna Aadan Xasan ugu qoran Muna Aadan Xasan sidee ku fasaxday markay deganaysi sidee ku fasaxday qof wax kugu yeelay cirbad kugu duray wax adag waay Soomaaliya inaad qabsatid saldhiga kugu dhawaala tagtid oo aad dacweysid أنا عربد وما ملايه إنه جوجا وملاينا عادي إسكاه ضدك يا مركز دقت كدب أو شيء أنا جبت أنا قعنت أنا حنونس أنا هم حيدين أمي قدرت أنا درو لم بمركز ميوصل أحسنين ما بدي لين هذا أو شك سنة هذا مركز شك قاعد يجور لها ما قال لها ما بدي لين ما هنو وعادي بعتذر هذا مرشل إلى ما أنت إلها كلنتو عن صاحبيال سود وهذا sida aad bogeyga Facebook kala socoteen ba waxa jirtay gabar dhalinyaro ah oo cirbad gacanta loogu muday iyada oo saaran gaari biyaal ah gabadhii ayaan la xiriirnay si toos ah ayay qadka hadda ugu jirtaa waxaan rabnaa inaan ka wareysano sida wax u dhaceen waxayna ka waramaysaa dhibaatada gaartay iyo waxa keena shakiga in ay isaga shaksan tahay xanuun halis ah oo HIV in lagu talaalo cirbad gacanta loogu muday iyada sharaxi doonta wax walba oo ay la soo gudboonaaday iyo meelaha ay martay waayahay walaashay markii hore soo dhawo magacaaga noo sheeg sidee wax u dhaceen waa dhawa fartuuna liidaha waxay u dhaceen shalay adii 5 saac amal markay ahayd barqadi oo subaxnimo عيلش كبحي باورت عاسقة إلا سوق بعاد آذان إلا صنعوا راعي مركاني وحا أسعودي سيناي حكي كبح هذا مركز سيناي عيلش كبحي باورت الطاس إلا آذان سوق بعاد لنعاس أذيك إلا جرجينك راعي أذيك مرة سيمرين تربون كعمل قبل أن هذا أنكشك السنة هي صورة على قارقة عنو قيري ودتو عادي تدوجر ميلهاس هورتين استاغنيت dhinacan midigteena iga xigtay haye marka anoo dhinaca miraayada xigsanay aniga dhinacaana xigsanaydan dhinacan midigteena iga xigtay anoo dhinacan ku maqano dariishada dhinacan aan fiirinayo gacanta meesha laabatada oo halbowlaha oo gacanta muruqeeda meesha u dhow muruqa waaybo juk xoogan iga gaartay waa soo jeestay gabadhii maxaa soo jeestay ayadoo gacnaheedina hoos ku jiraan oo qof wax soo baxsanaysa camal oo wax sikanay camal marka koodii hore xanuun anoona dareemay shaki weyn ma ka qaadin waxa isdhaa gabadha wax ma kugu dhacay kugu dhufato xusulkeeda iyo miya marka gabadha weydiin maxaa dhahay walaalay gacan saayida iyo xanuunay maxaa qaldan maxaa igu dhufatay maxaa qaldan iyo sheeg bal haye markaas waxay tiri ayadoona islu reeynin oo wili mashquulsan waxay dhahday sorry macaanta sorry bis ay dhahday waa iska dhaafay cabaar hadana wili way xanuunay gabadhi waa isla saaranahay wili gacantu way xanuunay gacanti saaka gacmo dheer gashnay waa jiiday saakadi meesha dhiig iyo wax ma ku arkin waa isdajiyay maxaa dhahay goorba fartuun xusulay kugu dhufatanaagtee waa ku laabtay hadana waxaa dhahay gacantu wili way xanuunaysaa miraayad iyo wax ma wadatay saayday gacanti iyo xanuunayhe may iha ima dhihin hadana sidii erayga igu soo celisay sorry isla markiina baar waxaaba imaana baar waxay ku tagatay marka lacagtii ee u tuurtay ninka darawalka
aan lambarkii qortay maxaa isdhaa wax walba imaan kara fartuun xanuunkan saa hadduu kuu sii hayn naagti wac isla markii aabu wacayba anooba gaariga saaran dadki intay sii shaki geliyeen ayagana ay dheheen naagta amay ku turtay markaa u sheegay intay saarnay dadku uma sheegin laakiin markay degataa waxaan dhahay gabadhan gacantaani wax xoogan iiga dhufataan dhahay waa yaabanahay asixeen dhahay alla amaa lagu duray markaasaa shaki sii qaaday gabadhii markaa wacay hadallo xunay igula hadashay baabuurka waa ka degtaani siinaaya u socda guriga habarirtay markaa tegaa dib u wacay haddana gabadhii adiga erayo xunay igula hadashay maxaa qaadi kartaa hay dhahda adi maxaa qaadi kartaa waayahay walaalay shaki bixiyaan dhaha jug xooganay waayahay fartuun walaashay dad badanaa ku daawanayo waxaa noo sheegtaa gaariga aad saarneedeen nuucuu ahaa adigii gabadhan maxaa idin dhexeeyey ma isku dhoweydeen ma qofaa idin dhexeeyey see u kala fadhiseen maya qof nooma dhexeenin kursiga oo shirka kan ku xigo aan fadhino iyo mid ku sii xiga adiga kursiga labaadkaa fadhine ninka gaariga wadaa cid nooma dhexeenin ayadana cunugay wadatay anna cunugaa watay taas waay waxaa shakiga koowdii hore oo shaki weyn aan uga qaadin oo isdhahay gabadhan cunugay wadataa inay cariiri iyo wax dareentay wax soo baxsaysa saas inay jug kuu siisaa laga yaabaha isdhahay marka shakiga weyn muxuu yimid markay gabadh isxanaajiso anigana baabuur ka degtay aan wacay ee hadallada xun intay igula hadashay ee lambarkeedina damsatay waaya marka aniga tiktok aan leeyahay isticmaalaa tiktokiyaa magacii lambarkiyaa magaca ku qorana aan raadiyey waa helay magaceeda iyo lambarkeediiyaan dhigay talow maxaa isdhahday gabadhaan wax damacsaneen dad aa soo raadsan sidee ku ogaatay magaceeda sidee ku ogaatay maxaa ku ogaaday darawalka aniga lambarka ee lacagta ka tuurtaan ka qortay somneeda marka aniga watay aan u tuuray sintiyaal yar aan u tuuray saas lay ku ogaa karaa aniga farsamo kale oo ma aqoonin aan ku ogaado marka somneedka qofka markaa lacagta u tuurto magaciisoo saddexanaa soo baxaya lafta meesha magaca ugu qoran maxaa magaceeda maxaa waay marka muna aadan xasanaa ugu qoran muna aadan xasan haye marka lambarki iyo magaciyaa meesha ka yeeriye wax soo dabagala waa waay gabadhi dadka asxaabteedii way waceen oo igu xirnay tiktoki dadkii dhan way wada qabaafeen anigii waa yaabay markaasaa sii darsaday ooyin meelaa aadin ma aan waa meelaa aadaaba waaye saa iskiga oyna hooyaday u oynaysay maxaa tegay digfeeraa tegay digfeer maxay dhaheen arrinta annaga shaqo kuma lihin banaadirraa tegay laakiin maanta jimco waay banaadir ma furno ee saldhig alaale saldhiga kugu dhow tag saldhiga hodanaa tagna maxay dhaheen howlwadaag aada haddana haye howlwadaagaa tagna howlwadaagaa iska soo qornay waa iska soo laabanay cid waxna ma dhihin hadda suga iyo waxna dhahay ma lahayd orda fasaxaatiyiinaa nala dhahay gurigiyaa iska imaaday xalay markaa imaadaa saakada iska siiba saako maxaa u sheegteen saldhiga howlwadaag markaa tagteen askarta maxaa u sheegteen sida waxa iigu dhaceenaa u sheegay oo gabadha ay jugta ii siisay maxay idin dheheen marka lambarkayga iyo qorteen iyo magacayga kole wayna soo fasaxeen annagana war maba lasii gelinba waayo qofka haddii ku dhahda fasaxaa tahay qofkaasaa og mogtaa wuxuu sameynaya wax oobi ah aa qorteen ma jiraan oo dacwad ah haa dacwaan ka qornay laakiin faahfaahinna ma sii siino markay qoreen fasaxaa tahayna dheheen bis haye maxaa xiga marka aniga saaka gacmo dheeraa watay oo haddaa jiida saakada meesha dhibka iga gaari iyo ma arki karin markii hore meel oo caadi la iska arkaya guriga markaa tagaa saakada iska siibay aa meesha fiiriyey haddiyo kow muruga iisii bilaabato maxaa arka meel yar oo cirbad afkeeda ah hooyo iyo ilmihii kulli way arkeen ilmihii iska ooyeen aniga iska sii ooyey marka waxaa suubiyaa waa gabadhii meel walba haddii laga waca taleefonadeeda way damsan yihin ilaa hadda magacii wax soo dabagalooya ma laha intaasaa murugta iyo heesaa intaas marka maanta maxaa tega banaadir isku soo baaray banaadir qofka markay kow tagto ayadaa caafimaadkeeda la fiirihaa waxay qabto aniga alxamdulilah wax ma qabi negative la yidhaha haddaan kuu soo diraa baaritaanka haddaa rabtid xataa caddeemahooda laakiin maxaa liisoo siiyey kaniiniyaal oo ka hortag ah hadday dhibaato wadatay ayada marka waxaa la yidhahaa 3 bilood kadib soo laabo marka qofkaas waxay damacsaneed koleyba ilaahaa og iyo waxay wadatay laakiin shakiga keliya oo dadka gala maxay tahay taleefanada ee damsatay qofka haddeen wax isku ogeen si wanaagay u hadle taleefonna ma damsanayso waayahay adi hadda maxaa isaga shakisay waxyaabaha ugu shakisa maxaa ka mid ah walaa waxyaabaha ugu shakiyo hadda dadka ay ka qabaafaan oo laga wada cabsado eediska waayo haye badanaan dadka saasay idhahaayeen haddana saakaan waxa liiga soo baaray asigoo ahay cudurkaasoo ahay marka 3 bilood kadib imaaweyna idheen hadda wax ma ka ogaan karno kaniinigaan ka hortagana qaado
horta ani hadda wallaahi caasi waaba qawaafaaba ka qaadaba inay qof ii soo dhawaato kale iyo hadda shalay ani shaki iguma jirin marka waxyaabihii aan soo xasuusto hadda shalay oo dhan gacanteeda meesha hoose ku haysatay mar walbo fiiri gacanta hoose ugu jirta gabadha maxaa dadka adiga haddii wax ku gaareen oo qof dadka aragtida commentiga ka bixinaya muuqaaladaada dhammaantood waxay ku leeyihiin haddii aa uga shakaysa in wax lagugu muday waay aa gacanteeda itus u dhihi weysay shakiga halkaa ka imaanaya wuxuu yahay qofka dad badanaa kula saarnaa maxaa itus u dhihi weysay wax gacantaada ku jiro ma dhihin waxaa u dhihi waayey gabar yaray wadato maxaa isdhaha iyadoo istaagi maagayso cariiriya waa taqaanaa haddii caasi la raaca cariiri waayo jugle u malaynaani culays ma usii arkeenin waa gartay sidee ku fasaxday marka markay deganaysay see ku fasaxday qof wax kugu yeelay cirbad kugu duray wax adag waaye soo ma ahayn inaad qabsatid saldhiga kugu dhowaa la tagtid oo aad dacweysid ani cirbad uma malayheenin juga u malaynaya caadi iska ah dadkiyaa markay degato kadib oo u sheego dhaa gabadhaana gacantaana ay xanuunayso aan dhehe maxay dheheen amay ku durtay ani durow dhan baa markaas maigu soo dhacsaneen maba dayleen hadda saa oo u shakisana haddaa markaas shakigaan igu juri lahay ama ogaan lahay maba dayleen maahano waa dhibaatada hadda marashada ilaa maanta ilaaha og way ugu dambeyn maxaa rajaynaysaa dadka ku daawanayana maxaa leedahay horta qof walba maxaa leeyahay horta wax walba ilaahay horta qadar waaye wax ilaahay oo ku qorin kuguma dhacayaan laakiin ilaahay dadaal uu yiri qof walba waxaan ku waanaa inay taxadirto oo qofkii agteeda fadhiyo ee iska ilaalisay il gaar ah u lahaataa kadib insha Allah way walaashay adna caafimaad ku rajaynaynaa iyo in walwalka ku hayo ilaahay ka saaro wax dhibaatana ku tusin aad iyo aad u mahadsantahay waxay ahayd Fartuun oo ah gabar dhalinyaro ah Soomaaliyeed oo ku nool deegaanka ceelasha biyaha ee dowladka magaalada Muqdisho oo iyada oo gaari saaran gabar ee gacanta cirbad uga muday taas oo ka dhalatay shaki badan walwal badan oo ka abuurtay sababtay inay tagto dhowr isbitaal oo ku yaala magaalada Muqdisho si uu shaki baxdo iyadoo ka walwalsaneed in xanuun faafa lagu talaalay gaar ahaan xanuunka aad ku walwalsantahay sidii hadda ka hadlaysay oo HIV oo kala ah dhamaanna ay dhaqaatiirtu sheegeen in hadda xaaladeeda caafimaad ay wanaagsan tahay laakiin ay soo noqoto 3 ilaa 6 bilood kadib markaas oo la ogaan karo haddii falkan ay ka dhasheen xanuuno iyo in kale aad iyo aad u mahadsantahay waan ugu mahadcelinaynaa waqtigeeda qiimaha badan inoo hortay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo